qoyskan waa qoys ka kooban 7 caruur ah iyo labadooda waalid 4 sano ka hor waxay ka soo guureen qabalayga Quracle oo hoos yimaada degmada Fiilto waxa ayna halkan u yimaadeen sidii ay daryeel caafimaad caruurtooda ay ugu heli lahaayeen hayeeshee Xaliimo Cadooy iyo Naasir waa ay ka midab duwan yihiin caruurta kale ee walaalaha yihiin maadaama ay ka cadcad yihiin waana waxa ay u dhasheen walow sida waalidkood ii sheegeen ay jiraan xanuunyo ay dareemayaan xilliyada qaar Abba Xasan Aadan Ifiye waa aabaha dhalay caruurtan waxa uu ii sharaxayaa xaaladda caruurtan ay ku sugan yihiin iyo haddii ay jiraan xanuuno ay qabaan meeshan waxaa loo keenay inay dawladdu wax u qabato haddaan ka horano ilaahay uma nasiibin xilliyaha cirkaas kicimaha wadana korkooda waa hamburga aad u hamburga ilaa furuuryaha timaha gacnaha lugahan waa hamburga jirkaan oo isku hamburo oo biyo ay ka dilaan maya waxa horta waxa jirkaan waa waxay u dhasheen hortood waxay ku dhashay malaynaa hadda meeshan laba fadhida laba mid madow saddex mid madow meeshan fadhida mid afaraadna koraas jira saddexdan oo ka duwan saddexdan cunug waa saddex wiil iyo hal gabar baa ka duwan hal gabar ka duwan inta saddexdan waa nuuc afarna waa nuuc oo madow afar saddexna waa cadaan waa amar ilaahay waa amar ilaahay ma hadda wax jirid ku dhasheen ma lahay qoyskan waa qoys danyar ah waxa ay ku nool yihiin guri aqal Soomaali ah kaasi oo ka samaysan cooshado iyo bacal isku xirxiray isla markaasina ay awoodin inuu xijiyo dhibcaha roobka xilliyada roobka sidaasi oo ay tahana waxay noloshooda ku maareeyaan gaari dameer biyaha lagu dhaamiyo oo sida ay ii sheegeen ay u iibiyeen shacabka magaalada Fiilto inkastoo caruurtan xanuun joogto ah aysan qabin haddana waxaa jira in xilliyada qaar ay xanuunsadaan gaar ahaan waqtiyada kuleelaha ama dabeelaha ay jiraan sida ay sharaxayso hooyo Cadooy Cali Isaaq hooyada dhashay 7 caruurta ah oo qoyskan ka kooban yahay aan ku sheekara way iga xanuunsan ilmaha waa hamburaanay ma nafaqo darra ma xanuun haya baba kuleelka ka batay inta qanta mala iftiinka qorraxdu ma adkaysan karaan ma adkaysan karaan baahi ma adkaysan karaan baahi ayuub hatta dawal xasay hatta taama balan marka intaas baahi ma adkaysan karaan ma xanuun waa haya nafaqo darra moog ma haya kuleelka badiya moog waa haya dhaqaatiira ku deedeena ma madaan hayda caafimaadkan lagu fiiri hawaasa adiyana la dhahay waayo caloosh magan ku jiraan kala si ay mahayeen markaad shaki baa aragtay in ku bedelan yahay maxaa nidaada ku dhacay maxaa dareentay waa kal culays badihiin waana maxay kiilimiisaan badihiin Xaliimo waa gabadha hooyadan ay ku curatay iyadana ah u adeegaha qoyskan si nolol maalmeedka loo dabaro waxay ku shaqeysaa gaari dameerkan oo ku soo dhaamay biyo dabadeedna waxay u geysaa macaamiil ku xiran Xaliimo ayaan weydiiyay bal hadii uu jiro xanuun ay xilligan dareemayso xilliyada kuleelka waaya xanuun ku aan dareemo xilliyada kuleelka marka xagee jirka dhan wajiga gacmaha okay Xaliimo marka xaafadaha ama magaalada dhex maraysid dabcan qoyskada u shaqeeysa arkay marka maraysid wax caqabada la kulanta ma jira maya takhtaran leega caawi waa rabada ugu dambeyntiina qoyskan waxay ka dalbadeen dawladda iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta inay ka caawiyaan xaaladooda nololeed iyo mid caafimaad si ay caruurtooda caafimaadkooda loo hubiyo waa ilmaha loo nooleeyo aan jecel ilmaha loo nooleeyo ama nafaqo la siiyo aan jecel ila oo daawo liisay nafaqo kale loo raadiyo fasiimayna oo farteen dawladda oo cusubnayna nolosha guud oo ilmaha iyo habartood iyo anakaba ah iyo mid ilmahaba oo daawo jirkooda ah oo takhaatiir ah iyo mid noloshaba ah oo nolosha waa si xun aan ugu noolna ilaahayga xaqiisa iswajallahay arsaaqada ay ka buuxdaa ay dawladda inay wax naga taarto baan rabnaa Cabdiraxmaan Maxamed Muuse Cabdiraxmaan Ilkaase SR TV magaalada Fiilto.